بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصيب wanaag waxaa maanta noo suurta gashay in aan muxuu ahaa ardaydii gelino dugsiyada qaar kuwa kalena aan ku guda jirno inaan gelino xogtii aan soo ururinayna maalmaha marka maamulada kala duwan ee dugsiyada maamulayo markay gelidda dugsiyada halkaa ku dhuftaan kadibna ay ciwaankooda ku galaan waxaa suurtagal u noqonaysa inay arkaan ardaydii la soo geliyey ayagoo sii tegayo qaybta sib ardayda ay ku qoran tahay halkaas markay ku dhuftaan waxay arkayaan ardaydii la soo geliyey tusaale ahaan dugsigan sare ee Hargeysa 2013 sano dugsiyeedkaas ardayda hadda dhiganayso waa kuwan xaggan ku jiro si guud 891 arday bay u yihiin marka sidan oo kale bay usoo baxayaan qofka koowaad oo kale Aamino Naasir Sheekh lambarkeeda ogolaanshaha yahay 891 saddexda xaraf ee u horeyso waa magaalada uu dugsigu ku yaalo magaciisa Hargeysa oo kale har baan ka soo qaadanay saddexda xaraf kadibna serial number baan u sameynay lambar taxana ah oo ay ku kala duwanaadaan ardayda xaggan waxaa ku cad emailkoodii baa ku cad systemka uu generate gareeyay fasalka sagaalaad bay hadda gabadhan oo kala dhigataa B bay kasii tahay marka saas oo kale baa ardaydii kalena loo arkayaa kaarashoodii ogolaanshihii howlihii kale oo dhanna la guda geli marka maanta alxamdulillah waxaa suurto gashay in ardaydii aan maalmahan ururinaynay xogtoodii aan halkan gelino tallaabada xigto waxaan ka rabnaa in qaybta maamulka la diiwaan geliyo maamulka marka la diiwaan gelinayo saddexdan qaybood bay u kala qaybsami qaybta koowaad waa mas'uuliyadihii dugsiga ka jiray oo in la diiwaan geliyo u baahan qaybta labaadna waxaa weeye shaqaalihii oo in la diiwaan geliyo u baahan qaybta saddexaadna shaqaalaha marka la diiwaan geliyo in xaadirintii lagu bilaabo saddexdaa qayb baan hadda idinka baahanahay inaad qabataan qaybta koowaad aan idin yara tuso sida mas'uuliyadaha loo gelinayo mas'uuliyadaha kala duwan ee iskuulka ka jiro haddii la diiwaan gelinayo mas'uuliyad cusub markaa ku daraysa add new waa dhihi tusaale ahaan maktabad haye oo kale waa qofka library-ga hayo mas-uulka ka ah buugta intana mas'uuliyadood baa ayaa iskuulka looga shaqeeyaa si guud marka la dhaho marka waxaad u fasaxaysaa inuu maamulo qofka maamulka maktabadda kan dakhliga waan ka daynaynaa maadaama maktabad haye aan xagga magaca u bixinay marka waan ku daraynaa mas'uuliyaddan ama kaalintan qofkii hadhow mas'uuliyad cusub oo kale haddaan ku darayno tusaale ahaan waxaan qoraynaa macallin markaan qoro macallinka mas'uuliyadaha loo dhiibayo waa kuwii xaggan aad u doorto unbaa kolba gelayo mas'uuliyadaha macallimiinta loo dooro waxaa ka mida kow maamulka ardayda waa qayb ka mida fasalada iyo qaybahooda inuu maamulo waad u dhiibi kartaa waxaa kaloo loo dhiibi karaa gudbinta ardayda waxaa kaloo loo dhiibi karaa xaadirinta ardayda waxaa kaloo loo dhiibi karaa maamulka fasaxyada ardayda waxaa kaloo macallimiinta loo dhiibi karaa laylisyada iyo qalabyada waxbarasho inuu ardayda la wadaago waxaa kaloo loo dhiibi karaa cashirada tooska ah uu u dhigayo maktabadda ma ahaan kuwan kale looma baahno maamulka imtixaanaadka imtixaankii natiijadii inuu geliyo waa shaqo looga baahan yahay marka inahaas marka loo dhiibo mas'uuliyadda ayadana waad ku daraysaa marka meeqa mas'uuliyadood baan hadda diiwaan gelinay xaggan aan ka fiirinaynaa laba mas'uuliyadood baan diiwaan gelinay waa macallinkii iyo maktabaddii shaqada inta mas'uuliyadood ee dugsiga ka jirta markaas saa usoo diiwaan gelisaan shaqada labaad ee xigto waa shaqaalihii oo diiwaan gelisaan shaqaalaha marka la diiwaan gelinaya sidan oo kale tusaale ahaan ku dar shaqaale cusub markaad dhahdo shaqaalihii dugsiga ka jiray sidan baad u diiwaan gelinaysaa haddii aan dhaho Fu'aad Cabdi oo kale Fu'aad Cabdi waa shaqaale ka mida lab iyo dhadig ku yahay baad u doori kadib taariikhda dhalasho iyo waxyaabahan waad u doori kartaa mas'uuliyadihii aan hadda diiwaan gelinay wax halkan ahaa ka soo baxayaan maktabad haye macallin kolba kii aad u dhiibto macallin markaad u dhiibto xaggan hoose
intii macallimiinta ee mas-uuliyadihii baa usoo baxayo automatically ayaga ay sasaxayo. qofkaas Fuad Cabdi ahayd xaggan ku qoraysay shaqo ka dheeri ah shaqadii macallinimada looga baahday waa loo dhiibi karaa isagoo macallina dhinacna maktabad haya waa laga sii dhigi karaa. laakiin intii macallimada haddaad ugu daynayso waa intaad usoo saxday. qofkaas ciwaan baa loo samayn karaa oo ciwaan uu kusoo gala systemka. magaca uu kusoo galayo Fuad Cabdi oo kale waa usernamekii ama ciwaankii. kadib emailkiisi baad qori Fuad Cabdi tusaale ahaan @gmail.com ama yahoo.com ama hotmail iyo emailkiisa noocuu yahay. kadib password baa loo sameynayaa. passwordka marka loo sameeyo haddii qofka qof sii duwaan gashanaa uu yahay keliya waxaad ku dhufanaysaa tan magaciisana waad raadin si automatical systemka usoo helay. laakiin haddii aad uu cusub yahay qofka macallinka ah eed ciwaan u sameynaysa si systemka uu soo galo waa sidaas baa dhihi. qofkaas waxaad u xil saari kartaa fasalo kamida fasalada ka jira dugsigaas inuu ka warhayo. qayb kamida baad usii xil saari kartaa oo qaybaha 12aadka kamida A iyo B midku dooni ha ahaado. kadib waad ku daraysaa. markaad ku darto haddii aad rabto qofkaas ciwaan waad ka dayin kartaa inaad u sameynin waad ku dari kartaa. markaad ku darto qofka shaqaalaha saas ku duwaan gashay. qof kale baad haddana duwaan gelin kolba inta shaqaale duwaan gelisay xaggan baa laga arkayaa. Fuad Cabdi hadduu duwaan gashan yahay mas-uuliyadiisana waa macallin. marka qofkii waa la xaadirin karaa shaqaalihii xaadirinta xaggan baa laga sameyn. haddaad bilihii hore u baahan tahay xaggan baad ka raadinaysaa intaad xaadirisay. saasoo kale marka loogu dhufto bishii June oo kale haddaad u baahan tahay inaad fiiriso inta isxaadirisay shaqaalaha xaggan baad ka arki. Fuad Cabdi oo kale hadda bishan wax la xaadiriyey ma jirto waa maadaamaan hadda duwaan gelinayo. haddii loo baahdo bishu markay dhammaato waa la daabici karaa si file loo geliyo shaqaalaha attendance-gooda. haddii attendance cusub la sameynayo take staff attendance waa la dhihi. attendance-ga cusub la sameynayo taariikhda aad sameynayso aad ku qori 12 bisha maanta oo kale haddii aad u baahan tahay. qof hal shaqaale maadaamaan duwaan gelinay iskuulkan halkaa shaqaalaha noo soo baxay hadduu joogo wuu joogaa hadduu maqan yahayna wuu maqan yahay. hadday shaqaaluhu badan yihiin hal mar baad way wada joogaan sixi kartaa. hadday wada maqan yihiinna hal mar baad wada sixi kartaa. markaad isbedelkaa save garayso uu ku kaydsamayaa qofka inuu joogo jadwalkiina saasuu ku galayaa. halkan waxaa kugu soo qormaysa ood ku guulaystay inaad kaydiso xaadirintii aad hadda samaysay. marka dhowrkaas shaqo baan idinka baahannahay. alxamdulilah maanta ardaydii waan duwaan gelinay. ardaydana waa la xaadirinayaa iskuulkooda. shaqaalahana sidan oo kale baa loo xaadirinay. marka hore mas-uuliyadaha la duwaan gelin marka xiga liistada shaqaalaha la sameyn marka xigana xaadirintii baa la sameynayaa. dhowrkaa wax inaad kasoo baxdaan baan idinka sugaynaa dhammaan dugsiyada systemkan soo galaya oo 200 insha Allah kor u dhaafi doona hadduu ilaahay dhaho waqti yar gudihiisa.